Bismillahirrahmanirrahim. Cashirkeena ugu dambeeyay wuxuu ahaa working with the comments. Working with the comments ka bilaabi doonaa. Using comments marka la isticmaalayo comments-ka is a great way to provide feedback to others. Waa hab wanaagsan oo warcelin aad ku siin kartid kuwa kale oo kula isticmaala documentiga. You can use a comments. Waxaad isticmaali kartaa commentiga in a comments group on the review tab of the ribbon to insert si aad soo geliso ama delete a comments ama aad u tuurtid commentiga. Navigate between comments si aad u dhex shaqaysid commentiyada as well as show and hide comments sidoo kale si aad comment u qoraysid ama u soo muujisid. Insert comments marka la soo gelinayo waxaa leenahay when a review document you can insert a comment to ask a question aad ku weydiinayo, make suggestion aad ku sameynayo inaad wax soo jeedisid ama explain edits inaad ku sameynaysid adoo wax sharxayo oo dhahayo edit meeshan ku soo sameey oo kale qof kale inaad wax u tilmaamaysid. You can also reply to existing comments and comment hore u jiray inaad reply ku sameyn kartid. Word groups the comments and all replies so it is easier to follow the whole conversation. Waxaa leenahay dhammaan wixii comment la sameeyay ayaa waxaa ku sameyn kartaa iyo replies-ka dhammaan conversation-ka waxaa ku sameyn kartaa follow up ku sameyn kartaa dib u fiirin kartaa. Marka la soo gelinayo waxaa leenahay select aad doortaa qoraalka aad rabtid inaad soo gelisid. Waxaa leenahay marka select waxaad doorataa text-iga aad rabtid inaad ku sameysid comment. Waxaa leenahay review tab comments group, click a new comment button. A comment boolean appears in the right margin dhanka midigta kaga soo muuqana calaamada boolean-ka waa kana midigta waa. Waxaa tab your comments under your name qaybta hoose ee magaca qor qaybta hoose ku qoraysa marka and then click outside the comment boolean to save it si aad save garisid meel banaan oo commentiga aad ku dhex jirtay ka baxsan click si. Waxaa leenahay delete comment marka rabtid inaad tuurto. You can delete a comments that are no longer needed aan u baahnayn oo tuuri kartaa. Comment can be deleted individually or all at once ama dhammaan midna waa tuuri kartaa dhammaanna waa tuuri kartaa. To delete a comment that rabtid inaad tuurtid, in the right margin select a comment that you want to delete on the review tab in the comments group, click waxaa sidaa delete button. Kadib waxaa leenahay ciwaanka xigo find and replace text marka la sameynayo. The find and replace commands make it easy to find or replace specific text in the document. Marka aad u fududahay in la soo helo qoraal oo qaas ah ama replace in lagu sameeyo. Word 2013 provides option two ways laba hab to find a ku heli karto text. You can use waxaad isticmaali kartaa the find and replace dialog box ku soo baxa or ama navigation pane. To find a text directly inaad ku sameysid click waxaa at the beginning of the document ama waxaad sameyn kartaa home tab in the editing group, click waxaa find arrow and then click waxaa leenahay advanced find. The find and replace dialog box ku soo baxaya opens with the find tab selected kaga soo muuqan doona. In the find box tab waxaa qortaa the text that you want to find inaad ku sameysid. Click waxaa the find next button to start the search. If a match is found, the first instance of the text is highlighted in the document. Marka uu xarafka ugu horeeya ee la soo helo waxaa la sameyn doonaa highlight. Click the find next button again markale ku dhufo find next button ka ah to search for additional instance of text qoraalkaas mid lamida si loo raadiyo. To highlight all instances of the text dhammaan qoraalada wixii lamida haddii rabtid inaad raadiso waxaa leenahay click the reading highlight button and then click highlight all. When finished markaa dhamaysid click waxaa leenahay close or cancel button. Sawirkan waxaa ka arki kartaa find markii la soo dooranayo iyo replace sawirka qaabka u muuqan lahaa. Replace markaa sameynaysa waxaa leenahay click at the beginning of the document qoraalka meesha ka bilaabanayo click si. Waxaa leenahay home tab editing group kadib waxaa leenahay click the replace button. The find and replace dialog box ku soo baxaya opens with the replace tab selected
and find what books type waxaa qortaa the text that you want to replace and replace with the books type waxaa qortaa the replacement text and click waxaa leenahay find next to start the search. If a match is found, the first instance of the text is highlighted waa la garan doonaa wixii u eg in document ay ku jiro. For each instance of the text is found, do one of the following kuwan soo socda mid kamid sameey haddii lasoo helo wax lamida qoraalka aad raadinaysa. Click replace button to replace that instance and go the next instance. Marka midka aad rabtid inaad ku bedeshid haddaa marka hore soo heshay replace dhe hal mar wuu bedelayaa haddana mid kale next saas ku wad. haddii kale waxaad sameyn kartaa click replace all button to replace all instance in the document dhammaan hal mar inaad wada bedeshid. click the find next waxaad sameyn kartaa find next button inaad ku dhufatay to leave the instance and change in aan wax laga bedelin. go to the next instance midka kale xiga aad when finished markaad sameysid click close or cancel button. waxaa ka bilaabi doonaa insert watermark to your document cashirkeen xiga insha Allah. practicada sameynayna hadirtaan practicadena bilaabeynaa. waxaa ka bilaabeynaa comment sidii la soo geliya documentigaaga. tusaale waxaa dooranayaa ereygan oo kale document ay ku qoran tahay ama waxaa dooranayaa ereygan ay ku qoran tahay online oo kale. waxaa leeyahay new waxaa imaadaa review tab. haddii home aad joogtay waxaa imaanaysaa review tab. waxaa imaanaysaa comments group. waxaa leenahay new comment. new comment markaa ku dhuftay automatic waxaa soo baxay magacii iyo commentiga qofka bixinaya magaciisa iyo waxa la qori lahaa. waxaa qoraa tusaale waxaa leenahay test waayo oo kale. markaa qoray waa kana waxaa soo baxay qoraalka. marka meel banaana click siiye documentiga wuxuu leeyahay hadda commentiga leeyahay commentiga sidaan hadda leeyahay. marka waxaa rabaa comment kale inaan sameeyo. waxaa leeyahay meelaha imaa tusaale intoo kale ereygan waxaa leenahay time double click iyo helada sare new comment ku dhufta haddana wuxuu bixinayaa iska soo bedel oo kale. qoraalkan marka qof wax uu sheegaysaa tusaale haddii documenti qof oo kuu soo diray oo ku dhaho iga soo fiiri buuggan ama waraaqdan kadibna wixii error jiro ii soo calaamaday. marka waxaa uu isticmaalaysaa comments hadhow documentiga dib markaa qofka ugu dirto wuu arki doonaa wixii comment wixii soo bedel wixii wax ku dar aad dhahday. marka reply soo sameyn doonaa isagana wuxuu dhihi doonaa qaybtaan ku dhufan doonaa reply. marka magacii kuma soo laabanayo waxaa ku soo laabanayo magacii qofkaas computerka ugu qornaa ama info qaybta ugu qornayd magacaasa soo gali doona halkan kadib reply soo sameyn doona hadduu soo bedel iyo haddii kale. haddii inta aad joogtid waxaa leenahay waxaa isticmaali kartaa labadan button next mid aad dhehaysa iyo mid aad leedahay previous. next previous waxaa isticmaali kartaa sida iskugu xigaan iyo sida u kala horeeya inaad u kala bedeshid. waxaa kaloo leenahay delete inaad isticmaasho kanaad doorato tusaale kadib waxaa leenahay delete sidaasoo ku tuurte kan haddana waa tuuri karaa. maxaa sameynaa right click aa leeyahay kadib waxaa dooranaya delete aa dooranaya sidaasoo commentiga ku tuuri kartaa. find and replace haddii rabo inaad sameeyo sida loo sameeyaa. tusaale waxaa rabaa erey documentigeyga ku jiro waxaa arkay dhowr mar oo soo laabtay ereygaas sidaas ay tahay haddana ereygaas ma rabin waxaa rabaa erey kale oo 10kaas mar soo laabto. marka ereygii waxay noqonaysaa 10ka mar inaad tiro oo dib u qoro ereyga ugu baahnaa inaan ku bedelo. marka dib waaye waxaa isticmaalaynaa find iyo replace wax la yiraahdo. waxaa tagaynaa documentigaaga qaybta home. waxaa tagaynaa home tagaynaa kadib waxaa ka dooranaynaa editing group kadib waxaa leenahay find markaa dhahdid wuxuu kuu soo saari doonaa qaybta navigation banekan kadibna meeshan waxaa ku qortaa ereyga aa u baahan tahay. tusaale waxaa ku qorayaa video oo kale. video markaa qoro dhammaan wuxuu sameeyey heelaadu ii saaro soo ma. qaab kale waxaa sameyn kartaa in inta aad soo furto kadibna aad dhahday advanced find kadib meeshan waxaa ku qortaa ereyga aad rabtid in lagu raadiyo find iyo hadda ku qoro soo ma. waxaa dhihi karaa find next markasta wuxuu ii raadinaa mid kale ku xigo laakiin waxaa sameyn karaa read highlight inaa wada sameeyo
oo dhammaan xeelad wada saaro. Wuxuu sameyn doonaa wixii find u baahdo ereygaas videoga ama ereyga kale markaas aad doorato haddaa dhahdid all isar dhammaan wuu kugu saari doonaa xeeladka. Kadibna waa heshay sooma inaa bedeshaa rabtaa. Waxaa leenahay okay close iska leenahay waa ku laabanayna meesha hadda waxaa leenahay replace waa kana. Kadib markaa replace ku dhufatid waxaa rabtaa inaa bedesho video findiga lagu soo sameeyo waa la soo helay. Waxaa rabaa inaa ku bedelo tusaale waxaa leenahay muuqaal leenahay af Soomaaliyeynayna. Kadib waxaa leenahay replace hal mar haddaa dhaho waa bedelaa. Haddaa dhaho find next okay aa dhaho wuxuu sameynaa midka kale ku xigo uu gudbaa. Find next haddaa dhaho midka kale ku xigo. Kan marka replace igu sameey okay labadaas replace lagu sameeyay mid kalena ka tagay. Haddaa dhaho all igu sameey ka waran marka replace all dhammaan wuxuu ku sameyn doonaa wixii video oo ku arka meel kasta wuxuu ku sameyn doonaa wuu bedeli doonaa ereyga markaas aad u baahanto kugu bedeli doonaa. Mujida afartaas xab uu ahaa waa bedelnay. Marka find iyo replace sidaas u sameyn kartaa. waxay kaloo leeyihiin shortcutkiisa waxaad dhigi kartaa inaad dhahdo control F oo find sidaas aad ku heshid kadibna aad bedeshid ama aad sameysid control H oo replace ayadana shortcutkaas aad u isticmaali kartaa. labadaas qaab sameynayna cashirkeena intaan ugu egahay waa mahadsantihiin.